أشرف إنه إن مانتا سودو وينو الوزارة الدولة الفدرالية الصومالية مدير عمر عبد الرشيد علي شرماركة ونقصو قاري سعودال يرو قابل الوزارة وحو يمد إنا كوضا تشرنو الحريركا الدولة الفدرالية iyo dowladda Puntland waxaan dhamaantiin oo la socotaan ogtihiin waayahan dambe anaga iyo dowladda federaalku ana isku sanbanaanay dowladda dadka Puntland iyo dowladda Puntlandna wax badan ayay ka tabanayaan dowladda federaalka waxaana aaminsan yihiin in barnaamijkii iyo geedi socodka nabadda Soomaaliyeed ee laga rabay dowladda federaalka inay runtii sidii la rabay aysan u soconin wada baalmaray marka waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaruhu waa noo yimid waxaan rajaynayaa inuu jawaabo waafi ah su'aalahaas tirada badan oo dadka reer Puntland ay qabaan inuu nooga wada ayaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa is aragga iyaga iyo wada hadalka iyagu in ay wax badan jawigaas ka bedeli doonaan waxaan rajaynayaa in imaatinkiisu uu noqdo imaatin khayr wada hadalka iyaga iyo wada jirka iyaguna uu keeno midnimo Soomaaliyeed iyo horumar dhanka kale waxaa hore loola joogay madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe barnaamij isagu nala sii joogay insha Allah marka haddana waxaan ugu soo biray ra'iisul wasaaraha waxaan rajaynayaa marka wada hadalkayga inuu noqdo mid ay ka soo baxdo dan tacaamka ummadda Soomaaliyeed mid horumarinaysa madmadowga iyo dhibta ka jirta Puntland iyo dowladda federaalkana u raadinaysa xal waara ilaahay aad baad mahadsantiin soo dhawow farxad halka soo gaaro mar kale haddii sida uu sheegay madaxweynaha Puntland iyo waajidan ayaha dadka xogaa xiisada ka iyo maaragtay arrimahaas laakiin dalka kan dal aan hadda qaranimadiisa dhisayno dadka isku keenayno way waana markasta waxaa jiraya waxyaabo keeni kara maaragtay shaki ama keeni kara xogaa in isla fahmo waayo haddana dad baa ilaahay naga dhigay waxa loo baahan yahay inaan markasta insha Allah aanu isku imaano ka wada xaajoonno halkan imaatinkeega waxay salka ku haysaa arrintaas insha Allah waxaan rajaynayaa markii wada hadalkeena noo dhawaado inaan gaarno muwaafaqo runtii aad wanaagsan waxa asagana halka joogay sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland asagana waa runtii wada hadalkaas qayb ka noqonaya runtii farxad loo tahay inaan waqti soo helno arrintan aan soo arjano runtii waxyaabo xal qaar lagu gaaro dhan aan meesha la imaan hadii la yiraahdo qaranka kan dadku sugayo waa annaga iyo dad kale oo hadda ka maqan halka waxa loo baahan yahay insha Allah dhisno oo hadii aan gaarsiin 2016 meel system federaal oo runtii qanaaca dadku qanacsan in ay meesha ka dhalato marka runtii waa ku faraxsanahay goor galo waa waqtiga aan soo galay soo dhaweynta madaxweynaha waa ka wada celiyay sida diiran oo noo soo dhaweeyay aniga waqtigeyga runtii waa gurigeena waa naanay waan rajaynaa insha Allah markii aan loo maro wada hadalno inaanu isla gaari doono muwaafaqo guud iyo runtii isfaham guud marka wixii kale insha Allah gadaal baan diiray